madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici oo maanta magaalada Boorama ka qayb galay xuska sanad guuradiisa talaadada ka soo wareegtay markii Soomaaliland dib loo soo noqotay xornimada ayaa markii soo ilaatay munaasabadda xuskaasi waxa uu soo kormeeray madaarka magaalada Boorama aadan Isaaq International Airport maalmihii ugu dambeeyay dayactir badan lagu sameeyay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland waxa kulmayso ku helnay duqa degmada Boorama Salebaan Xasan Xaddi iyo wasiirka xukuumadda kulmiye waxaana guranaadkaasi ka hadlay maayirka magaalada Boorama Salebaan Xasan Xaddi waxaana ugu warbixiyay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland halka uu marayay dhismaha garoonka diyaaradaha magaalada Boorama annaga oo iskaashanayna wasaaradda duulista halkan waxaanu ku bilownay airportkii isagoo aan in badan aan laga shaqayn ayaa hay'adda duulista iyo annagu iskaashanayna oo ka tusaale qaadanayna ama ka duulayna dardaarankii madaxweyne ku-xigeenka oo uu yidhi horumarka dalka diyaar baa loo yahay waxaad qaban kartaan ku bilaaba iminka waannu idin soo gaadhaynaaye laakiin dadka reer Boorama maxaa laga doonayaa hadalkii madaxweyne ku-xigeenku yidhi inay ta'kiidiyaan oo ay xasuusnaadaan baa laga doonayaa laakiin hadday hindi noqdaan dhulkay degaan dee annagu soo rari mayno airportkii wuu furmay wuu furan yahay intaas kadib waxa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda macdanta Soomaaliland oo ballan qaaday in madaarka magaalada Boorama laga dhoofin doono macdanta Soomaaliland marka la soo saaro annagu haddii aanu nahay wasaaradda tamarta iyo macdanta laba xaalabo waanu xooggaanu saaraynaa horta waxaanu xoog meesha ugu weyn ee aanu isleenahay dhaqaalaha waxbay ka beddelaysaa waddankeennu sidan kuma jiri karo waa inuu dhaqaale helo hanti uu leeyahay waa inuu la soo baxo taana waxa ugu horreeya oo shidaal ka horreeya macdan meelaha iska taaltaalla oo aan fogayn oo 10 mitir haddii la qodo laga yaabo in loo dego oo dabadeedna waddankeenna dhaqaalihiisa kor u soo qaada waxa ugu badan qayb libaax waxay ku jirtaa gobolkeenna Awdal ugu dambeyntii waxa halkaasi ka hadlay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici waxaana halkaasi ka shaaciyay inuu furan yahay madaarka magaalada Boorama aadan Isaaq International Airport hadal badan kormeer waxaan maanta ugu soo baxnay airportkii runtii Boorama oo codsi nooga yimiday shirkadda diyaaradaha ee Djibouti Airline oo tirsankan xagaaga waxaan jecelahay dadkii aad buu imanayaa Soomaaliland aad baa loo imanayaa marka waxaan jecelahay in airportka wax laga qabto waxaan la soo hadlay labada gudoomiyaha gobolka iyo gudoomiyaha degmada runtii waxaan idhi wixii dadkiina kaashada waxaad qaban kartiin qabto airportka hadda uu iska diyaarsan yahay maadaama muddo dheer laga shaqaynin oo de maartay oo rifmay oo baabuurta ay reer Boorama baabuurta ku barbartaan waxay noqotay meesha ku baray oo airportka xirmay waxay noqotay meeshii baabuurta lagu baray noqotay tii waxay keentay in marka airportkii maartay de raf noqdo marka runtii waa aad iyo aad baan ugu hambalyeeyay runtii maayarka iyo gudoomiyaha gobolkaba gaar ahaan maayarka runtii aad hawl adag buu ka qabtay waxaan arkayaa maanta maalintii waa soo maray mar dhexda ahayd baan soo marnoo de maantana waa meel isku siman shalayna waxaa meel 100 ay ka sameeyay taayirada ay ku sawirmeen baabuurta ku sawirmeen marka runtii fariinta labaad aan dirnaa waxa weeyaan danta guud baa wax walba ka mudan waxa weeyaan airportka ninkii sadaqad ku soo galay iyo ninkii daarka ku soo galay isaga waxa leeyahay maanta loo joojin